معلومات عليا جود عن شعب غير سوماليلاند gaar ahaanna dadweynaha ardayga u ahay ee degmada Gabiley ee sida quruxda badan ii soo dhaweeyay aad baan waxa kale oo macallinayaa jaaliyada reer Gabiley iyo reer Soomaaliland ee wadamada Yurubta ee aanu soo maray ee sida fiican ee qiimaha leh noo soo dhaweeyay iyagana gudoomiyaha guddiga jaaliyada waddanka Sweden Sakariya Xasan Wacays ayaa isaga u macallinaya iyo ku-xigeenka jaaliyada reer Gabiley ee Sweden Holland Norway iyo Jarmalka intaba waanu soo maray waan halkaan uga macallinaya waxaan leeyahay Gabiley maanta runtii qiimo weyn oo sharaf leh oo soo dhaweyn aan weligeed la arag ayay sameeyeen waxaan idin sheegayaa walaalayaal maanta waxaynu u baahannahay marka laga yimaado mahadcelintaasi inaynu wax wada qabsano waad ogtihiin waxaynu taageeraynaa marka ugu horraysa in ciidanka qaranku ay difaacaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan haddaynu reer Gabiley nahay waxaynu madaxweynaha ku taageersanahay go'aankii uu qaatay iyo axsaabta qaranku in dalka la difaaco oo aan inala soo gelin faragelin hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhinaca militariga iyo dhinac kastoo ay tahay ma ogolin faragelin shisheeye dalkaygana waan difaacayna loo baqan maayo Soomaaliland halkan ka bilaabinay Gabiley bay ahayd reer Gabiley waxay diyaar u yihiin siday shalay waddanka ugu halgameen ay taliskii afweynay faqashtii daaqadda uga tuureen inay maantana cadow kastoo Soomaaliland ku soo gargab waxaan fariinta keliya sidee waxay ahayd dooxa arabsiya inaynu dhisanno iyo inaynu isboortiga dhisanno labadaas markii aan jaaliyadaha la kulmay waxaan u bandhigay baahiday naga haysata dooxa arabsiyo oo dad badan oo inagu qaaliya indhaheenna oo shana halkaa ku qaada oo kuwa horena qaaday oo aad moodo inaynu balaayada la qabsannay taas awaa in farraysa la ururiyo reer Gabiley meel kastoo ay joogaan jeeba gacanta geliyaan dooxa arabsiyana aynu fankiisa bilaabanno taa waana iga aqbaleen lacagtii ugu horraysana waa la bilaabay mustaqbalka maaragtay mustaqbalkooda waxbarasho waddanka Norway caasimadiisa Oslo waxaan kula kulmay jaaliyad qaaliya oo reer Gabiley ah hablo aad u qaaliya oo la yidhaahdo Somaliland Women Association waxay ballan qaadeen oo ay bixiyeen 10 arday oo caafimaadka inoo barta oo scholarship ah waddanka Sweden isna nin la yidhaahdo oo dhalinyarta aad wax ugu baratay waddanka Sweden oo wax bartay oo jaamici ah oo la yidhaahdo Maxamed Xasan Kaahiye oo halka Cabdiraxiin looga yaqaano isaguna ciyaaraha ayuu aad uga shaqeeyay dariiskoodii iyo qalabkoodiina waanu sidaa waxna waanu soo socdaan imikana qaybasida isku tashanno gacmaha isqabsanno waxa aad arkaysaa waxay loo baahan yahay inaynu wixii inaga qaldamay inagu toosisanno oo aynaan dunida kaaleenna arkay ku odhan waxaan tiifiyada ka daawanaya xildhibaano golaha deegaanka oo ka hadlaya wax Gabiley dhaawac ku ah waxaan leeyahay waxa laydin doortay inaad ummadda wax u qabataan haddaanu qaldanno inaad la qabataan laydinma dooran intaad warbaahinta istaagtaan inaad ceebtiina reer Gabiley ka sheekaysaan waxaan u baahannahay qofku waa bini aadan waa khaldami karaa waa gefi karaa shaqadana waa la hilmaami karaa laakiin in laysku cayo maaha waa in laystoosiyaa waayo ma kala maaranno xildhibaanadana waxaan leeyahay ummaddu halkaa waxay dhiigga inoogu shubtay ee safka inoogu jirtay cadeedda kulli inoogu taagnayd waa inaynu wax ku celinaa waxaa naga go'an dadweynaha reer Gabiley waxaan u sheegaya hadhi iyo habeen waxaanu doonaynaa inaanu hore u soconno inaan waddanka Soomaaliland wax ka dhisno inaan mustaqbal madaxeed yeelanno ayaan rabnaa inaan Gabiley hadda ka wada dhisno uma baahnin ee dunidu ay soo dhawaatay ictiraafkeedu ayaa xuduudaheenna waxa weeyaan la soo gardaroodayo kolba meel laynaga soo gala ama qolada imika halkaa joogtaa noqoto waddankeennu min Taleex ilaa iyo waxa weeyaan meesha la yidhaahdo Zeylac
nabadgelyadiisa ubaxa u soo koraya ilaashanayo cid alla cid looga fadhiya oo laga barayaana ma jirto waa difaacaynaa waddankeena gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynaya waxaan kaga baxaya waxaa la yidhi qofkan bini aadamka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo waddanka horumar badan baa ka socda waad ogtii inta waddada socda waad ogtii waxaan leenahay war qoliyaha halkaa maaragtay naga soo tuurtuuraya waar jabadii shalay waddanka qabsatay ninkii shalay waddanka xoreeyeyba maantana madaxweynaha oo weliba ciidan adag iyo shacbi adag iyo difaac adag intaba haysta waxaan kaga baxaya hadalkayga uga faa'iidaysanaya reer Gabiley horumarka jecel reer Gabiley midnimada waddanka jecel reer Gabiley oo halgankii waddanka dhisay reer Gabiley madaxweynaha maanta jooga doortay waxaanu leenahay mudane madaxweyne difaacaad waddanka ugu jirto iyo xagga dhinaca horumarka labadaba isku wad reer Gabileyna mar labaad way ku dooranayaan ha noolaado madaxweynaha Soomaaliland ha noolaado madaxweynaha Soomaaliland ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado walaalayaasha qaranku ha noolaadaan reer Gabiley ha noolaadaan Soomaaliland ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh